يرو هلينين ميان بوسلو الشيقين محاي هاند هو يا ويدي محاي هرت السيحة ويدي محاي المهيب dhibaato weyn ayaa soo waajahday waalidiin badan oo ku nool dalka Sweden kadib markii ay goobjoog ka noqdeen aaswadareedyo loo sameeyay dhalinyaradii ay ku rajo weynayeen inay ku nastaan kadib muddo ay nolol adag u soo mareen inay keenaan mid ka mid ah wadamada ugu fursada fiican dunida si ay dhalinyaradaasi uga badbaadaan mustaqbal la'aanta haysata dhalinyaro badan oo ku nool dalkii hooyo waa sidee dareenka hooyo u soo joogtay wiilkeedii oo si xanuun badan horteeda loogu dilay محاي هرت السيحة ويدي محاي المهيب بقليسي ميدان وركهينين waxaan rabaa halkan inaan uga duceeyo geerida masiibada leh ee ku timid markii hore wiilkayga saaxiib la ah oo la dhaho Ciisa anoo aad u qalqalsan oo waagi ii bariyay aniga wiilka la dhashay ayaa haddana maslax ay timid waa wiilka anigu aan dhalay maslax Xasan Warsama taasna waxay nagu noqotay Soomaali weyn haddaan nahay meeshan ku nool wax argagaxiso leh shalay waxay ka dhacsaneed wadan waxa ku nooshay magangeliye laakiin maanta ma aaminsani maanta waxaan aaminsanahay haddii aan awood u yeeshto inaan wadankan aan ka gabagaboobo oo caruurteeda ka wato waan ku tali jiraa laakiin shalay kuma tali jirin shalay waxaan ku tali jiray aniga maadaama aan yaraan ku imid wadankan oo aan muddo badan aan deganaa waxay iga dhacsaneed wadanku waa nabadgeliyo wadanku maaragtay dadka isku siba loola dhaqmaa xaqa maaragtay wadankii aad ka soo tagtay adoo yar dhibkaad uga soo tagtay halkan ilmahaagii kuma dhacayaan laakiin markii aan dareemay waxaan dareemay 100% in aan wadankaaga ahayn inuu yahay dareen ku joog ayladhaantani waxay sababtay in dhalinyaro aqoon-yahani ay arkeen in wakhtigan yahay wakhtigoodii ay u istaagi lahaayeen wax ka qabadka dhibaatadani hadhaysay mustaqbalkii Soomaaliyeed ururka isbahaysiga Soomaaliyeed ee dalka Sweden ayaa arkay in barnaamijka kaliya ee xalka oo dhibaatadan uu yahay in waalidiinta laga kaalmeeyo fahanka dhibaatadan iyo sidii loo maareyn lahaa ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed oo la aasaasay 25 sano ka hor ayaa hadda markuu arkay dhibaatooyinka faraha badan ee ummadda Soomaaliyeed hadda hortaala ayaa waxaan go'aansanay in aan qorno mashruuc waalidiinta iyo habka u barbaariyaan ilmaha in aan hirgelino dalka Sweden waxa keenay in marka mashruucan loo baahdaa waxay tahay waqti dheer dhowr sano ayaan waxaan baareynay dhibaatooyinka ka imaada ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Sweden isfahankooda ummadda Soomaaliyeed marka habkii ilmaha u korin jireen dalka Soomaaliya iyo habka ilmaha loo koriyo Sweden aad u kala duwan markii aan hadda ummadda Soomaaliyeed qoysaska degan Sweden aan eegnay waxaa jiro qoysas 35 sano degan Sweden saas awgeed ilmihii iyo qoysaskii markaan dhex galnay oo ururadeena ka tirsan ayaa waxaa noo soo baxay in ilmaheena iskuulkooda uu darajadooda ay fiicnaan waxaa noo soo baxay in ilmihii iskuulka markay ku beerdareysteen ay dhinacii criminalka aadeen waxaa noo soo baxay waalidiin fara badan oo guryaha jooga oo shaqo la'aan ah taas ayaa waxay keentay marka aasaas in uu dhaliyo guryihii qoysaskii ummadda Soomaaliyeed ee Sweden saas awgeed ayaan waxaan ururka isbahaysiga go'aansanay in aan soo saarno mashruuc baahi tiri kara waxa ka maqan ummadda Soomaaliyeed saas awgeed ayaa haddana mashruuc waxa ku jira inaan xoojino xiriirka waalidiinta iyo degmada ama hay'adaha dawliga ah ee ku yaala degmada sidii afahankaas uu u xoojismana waxaan u soo saarnay uu hogaaminaya Cabdullaahi Koronto mashruucaas 8 ama 9 week soconaya inaan ku dhisno waalidiinta mashruuca waalidiinta ururka isbahaysiga wado asagoo la kaashanayo ururo 5 gaarayo 5 urur oo ka jira 5 magaalo oo arrinta 5 magaalo ururka mashruuca laga fulinayo yani wuxuu ku bilowday arrimo jira awgood
waxyaabaha aan sameyn marka uu xoogga u saaray waxaa horta ko inaan waalidiinta fursad u siino inay reflection sameeyaan inay isweydiiyaan horta maxaa dhacay oo ay fahmaan waxa dhacay in badan oo kamid ah waxaa sababay safarkan iyo hayaankan lasoo galaa qaybka ah ko in ay fahmaan in burburkan aan sida saxda loo manage garanayn qoyska inuu qayb weyn ka yahay dhibaatada mar dambe la dareemayo ilaano in badan waxaa la ogyahay in caruur badan oo wiilal ku jiraan oo gabdho leh intaba inay ku korayaan qoys hal qof ay soo korinayso oo inta badan u badan hal hooyo marka in cilmi ahaan ay u fahmaan saameynta ay ku yeelanayso in hal waalid uu joogo waalidka kale maqnaashihiisa saameynta ay ku leedahay cunugaasi korishiisa in ay fahmaan in aan fahmno waxa laga qoray maxmaha sheeka ah yani in waxa laga qoray in cunugan maskaxaan si u saameynayso haddii labada waalid isdagaashan yihiin ay xumaan ugu kala hadlayaan caruurta in aan wax iska weydiino qaabka dabcan waa aqoon laakiin saas in la isweydiiyo sidee isbedelka u dhacay even xataa wadamadan aan joogno marka laga hadlayo hababka waalidnimada maxaa yeelay anaga inta badan systemkeena waxaa xoogga la saaraya cunuga in wax laga bedelo laakiin meesha ugu muhiimsan waxay tahay in waalidnimada ama qaabka aniga u dhaqmaya in wax laga bedelo maxaa yeelay qofka wax iska bedeli karo u fudud aniga oo dhihi karo waxaan cunugan ujeedas u dhaqmaya sidee wax uga bedeli karaa qaybtaas marka waa qaybna waa tababaro qaybna waa fursad in qofka uu isweydiiyo maxaa dhacay si wax looga bedelo qaybta kale waa aqoon kororsi oo runtii in badan dabcan waxaa laisku waafaqsan yahay xiriirka waalidka iyo caruurta inuu muhiim u yahay inuu aad u muhiim u yahay marka laga hadlayo barbaarinta iyo korishaha iyo saameynta weliba marka loo yimaado arrinta si gaar loogu yimaado marka khilaaf uu dhaco qofka wax saameyn kara waa qofka xiriir kula leh anigu hadda tusaalaha haddaan kaa soo qaado oo qof aan aqaano markaan dhowr waxaana kaa qaldan inuu iga dhagaysto way adag tahay baynama haddii aan saaxiib la ahay aan ku idhahdo saaxiib waxaana kaa qaldan oo weliba si ixtiraam ugu sheego cunugaadana waa sidoo kale marka nadariyadaasi oo isku xirnaanta oo ah attachment theory la yidhahdo runtii aaday dhaqankan uga maqan tahay ama muka xoog badan dabcan qaybteeda waxaa jirta oo naturalka oo ilaahay ugu talagalay oo waalidkii isku xiran yihiin caruurtii way ku jirtaa laakiin in aan aad u fahamno saameynta ay leedahay waa muhiim shuruucdii iyo systemkii iyo hay'adihii siday u shaqeynayaan qaybahaas waa marka waa aqoontii iyo aqoon iswadaarsiga iyo waxay waalidiinta kale la kulmeen qaybta saddexaad oo iyadana muhiim waxa waaye in isku xirka waalidiinta waa network in loo sameeyo oo waalidiinta iyaga laftirkooda aqoon iswadaarsi ay sameeyaan in ay ka shaqeeyaan si ay isku caawi lahaayeen haddii hal qof uu yahay sidee laba daris saddex daris ay caruurta qof intuu uga tagtaan qof kale uu soo adeegi karo waxyaabihii ku dhacay si u wadaagi karaan marka qayb waa in la isweydiiyo maxaan ugu dhacay isbedelka dhacay intuu la egyahay maxaan ka faa'iideysan karnaa aqoonta iyo nadariyaadka iyo theories ka jira maxaan ka faa'iideysan karnaa oo si aan wax isaga bedelno iyo sidee isugu xirnaa karnaa ka bulsho ahaan si waxa jiran aan wax ugu qabanno oo aan isku caawino fursad ayay noqotay barnaamijka ururka waalidiinta ee ururka isbahaysigu wado waxaanu noqday fagaaro ay ku hadlaan kuna bartaan maaraynta korinta ubadka nolosha cusub ee wadamada galbeedka waxaa la tababaray waalidiin badan oo iyaguna dib ula sii wadaaga waalidiinta kale aqoontii ay barteen magacayga waxaa la yidhaahdaa Ugbaad waxaan deganahay magaalada Buurlenge waxa aan ka shaqaynayay barnaamijka waalidiinta maxaa la yidhaahdaa ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed uu wado iyo ururka UMIS oo ka wada shaqaynayay waxaanan aad u xiiseeyaa oo jecelahay tarbiyadda waxaan kamid ahaa macallimiintii loo soo tababaray 5 magaalo in maxaa la yiraahdaa ay barnaamijka ay waalidiinta kale ay maxaa la yiraahdaa ay barnaamijka daadihinayay waxaan runtii aan aad ugu faraxsanahay oo maadaama dhinaca tarbiyadda aan aad u xiiseeyo waxa aad ii xiise gelisay wixii maxaa la yiraahdaa aan akhriyay iyo wixii aan xiiseynayay oo noqday yacni barnaamijka waalidiinta ii noqotay goob ama gole aan kula hadli karo oo waalidiinta maxaa la yiraahdaa wada hadal uu nagu dhaxmaro iyo inaan cilmi kala faa'iideysano waxaynu qabanay tababar waalidiinta ah oo la siiyay dhowr group waalidiintu tababarka laba ujeedo ayaanu kala hayn midka koowaad waxa weeye waalidiintu horta in kor loogu qaado aqoonta u leeyihiin kobaca caruurta ilmuhu way koraan jir ahaan aqoon ahaan nafsiyad ahaan dareen ahaan marka waalidku dee inuu aqoon u leeyahay isbedeladaas kusoo kordhaya ilmaha muxuu ahaa koriimadooda qaybta labaad oo ah waalidku inay la kulmaan waalidiinta kale oo isdhaafsadaan aqoonta iyo waayo aragnimada anaga hadda markaan kooraskan aan waalidiinta aan u sameynay waxyaalaha ugu waaweyn ee waalidiinta baahidooda noo muuqata waxa weeye
in ay jirto baahi weyn oo ku saabsan maxaan ku rahdaa xiriirka waalidka iyo maxaan ku rahdaa caruurta iyo sidii loo hagaajin lahaa baahi waxa taa hortaagan caruuro badanoo waxaa jira waalid leh baahiyo gaar ah oo waalidkiina uusan fahansanayn ama cilmigeeda u lahayn marka taasi waxay hortaagaysaa waalidka inuu xiriir wanaagsan la sameeyo caruurtii si wanaagsan uu barbaariyo oo ay ka mid tahay maxaan ku rahdaa waxaanu ka hadlaynaa inta badan caruurahan concentrationkooda uu yaryahay ama maqan yahayba dhaga adayga maxaan ku rahdaa ilmo aggressive ah waxaanu ka hadlaynaa ilmo maxaan ku rahdaa ku liita aqoonta oon waxbarashadii runtii aada ugu liita waxaanu ka hadlaynaa luuqadda iyo hadalka ilmaha ay ku adag yihiin waxyaalahaasoo dhan marka waxay challenge bay ku noqontay runtii arrintaas waalidka marka waxay ugu weynaayay kooraskan ka soo baxay waxay ahayd waalidka inay waxyaalahaas la tacaalayaan bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ahay magacayga la dhahaa Fawsiya Maxamed Axmed waxaan deganahay magaalada Buurlange maasha Allah waxaan ka qayb qaatay kuushkii waalidiinta ee noo soo diyaariyeen walaashay Ugbaad iyo walaalkay Cabdiraxmaan alxamdulillaah waxaanu ka faa'iidnay wax badan waxaas oo ah waxaanu nahay waalidiin yimi wadanka dhawaan wax badan aan fahansanayn baa iska jira marka wax badan baanu ka faa'iidnay runtii waxyaabahan ka faa'iideystay waxaa ka mid ah waxyaabo fara badan daan tusaale u soo qaado ilmaha sida loo dhiirigeliyo ilmaha sida maaragtay isheeg qorshaha maaragtay isheeg ilmaha waqtiga jiifka waqtiga cuntada waqtiga ciyaaraha waqtiga TV-ga la fiirsanayo waqtigadaas oo dhanba maxaan kore isheeg waxaa la yaabaa marka hore inay seekaan dhayacsaneed laakiin hadda qorshaan u sameeyay wallahi casharada waxyaabo badan baad ka faa'iideysaa oo ay tahay sida adiga xaruurtii u dhaqmaysaa waxa badan aan ka faa'iiday waxa weeyaan calashan xaruurtii oo kale marka maaragtay aad la hadasho ama saa u dhaqmaysaan waa inaad waxyaabo badan ayaan ka faa'iiday runtii aad iyo aad u badan iyo inaad maaragtay waqti wada qaadataan xaruurtii weegii mar ama 2 jeer ha ahaato inta la wada fadhiisto la casheeyo oo waqti la siiyo qof walba rayigiisa la dhageysto iyo xaruurta fudud sa loola dhaqmay iyaguna ka faa'iiday maasha Allah waa runtii aad iyo aad baan aniga ahaan deeq ahaan aad uga faa'iiday haddaan fiirino gadaal haddaan u fakerno horta sahanka migrationka ee laga soo tagayo wadan oo wadan kale la imaanayo kaas laftiisa ayaa wuxuu sababi karaa in dadkii ay dhibaato ay awal wateen in meesha ay imaadaan ay kala kulmaan haddana oo sii saa'ida tan labaad waxa weeye iskuuladii system annaga aan naqaano ma jiro markaan halkaan imaano dhaqan aan wadanay kan meeshaan wuu ka gedisan yahay diinteenna tan waa ka gedisan tahay maanta haddii la warsado swedishkii 50 sano ka hor iskool aadi jiray waxay leeyihiin kan maanta iyo kaas kii horaa sahlanaa oo dhibaatadan kuma dhacaysa keliya ilmaha soomaalida oo inta imaaday laakiin dadka wadanka u dhashay xataa way ku dhacdaa maxay tahay dhibaatadaas ma jirto maanta intaad taleefon qaadatid inaad macallin la hadashid wax kasta waxaa maanta aad gelaysaa website meeshaasaad waxaad ka arkaysaa website iskuulkaa gelaysaa meeshaasaad waxaad ka arkaysaa cunugaagii daruusta suu ku yahay cunugaagii suu iskoolka ku yahay cunugaagii hadduu saa ka soo daahay marka intaasoo dhan qofku wuxuu u baahan yahay waalidka asaga laftiisa aqoontiisa inay dhisan tahay